aniga ay isuu dhaxgelin dhigaha ana dilaacin saadaba aniga arinkan adi uu kaawan yahay salonga iska fariiso buskudkaaga iska cun intaan anigu iyaga karbaasho ninkaygu sabaxadu xariifay kung fu ciyaari jiray walaalkayna waa aabbaha farfarka عمرين والله قدوانيا حسبنا الله ونعم الوكيل way ilaahay oo maxaa sameeyo labada fulay ee dhaxdhigtay fulinimo maaha iyaga u baqaya anigu أنا يرانتي ما واحد فولحهم جيستي اللي حري جاري إنه واحد يبغى نقطة مضانة كيرا حقا كلا جاري كل شيء كذا سرير جاري ها مضانة حين أكون نقطة warwarag sideen oo kale ardo u baxa حبيبي وعروحه والله يرى يمكن سوق عسو حدويس إنه أنتوا تقولون حقا كل شيء أيوه عن كرر ناوح اسكفر وعدلي كرساي ragnimo iba markay daalaan dal la'aan bay isaga soconaya way baabkii bi soo jabiyeen baxa hafurin waan furi hafurin waan furi hafurin waan furi hafurin waan furi haddaad furtid albaabka alla waa ku furi qaadiga lambarkiisana anaa haya ya hafurin maa ku yidhi waa hafurin waa hafurin okay geesinimada oo nigu ogaa السلام عليكم السلام عليكم مين ده أنا كده A few moments later. way bisilka حبيبي askarta la hadal laakiin ma noolaana waa dhintay way alo ma booliskiiba allahuna iga soo gaaro odaygaygii walaalkayba lagu tumtee منولي ورا بس ما كان إيش أكو خبيسة كدلقات uga dulqaadaada isha xanuunaysa maaha يوروب waxaa la oranaa dhowta waa illuminati shaydaan buu caabudaa baa la oran isha ka dulqaad de isha xanuunaysay haddaan ishii xanuunaysay aan baasmaayar dul saaro ma shaydaan baa caabudaa isha ka dulqaad ilaahay allah bal eeg dhibaatada noo geysanaysid dee meesha kale meelax kaloo xanuunayn baan ku qabtaa xagga iskaga nab waraahe tii yaradna aaway horta askartu markay timid waa tii kaxaysay raggii waa la xidhay la xidhayo waxaa lagu xakumay 5 sano oo xabsiya hay iyo 100,000 oo ganaaxa inna lillahi wa inna 20 sano xabsi iyo 500 kun baa looga dhigo faarimo noole adu ma seexanaysid daacad baa tahay wallahi walaasha waa tahay albaabkii naga soo xiratay saxde odigeygii baa tahay aqalkaagii baa lagugu yimiday waa lagugu dhex karbaashi mas-uuliyaddaada inaad qaadatid bay ahayd oo reerkaaga aad difaacdid mush inaad satwaalka daaradda aqalka lagugu masaxo birbesitan biro aniga islaantayda layguma hor ulay ilaahoo kaa magan islaantaydoo laygu hor dilo ilaahoo kaa magan yaa rabbalcaalamiin haddaa feedhoogoo kala lahaanu waa wala seexin lahaa gebigooga dhanba haddaa birta isqornana لا إله إلا الله اسكخب هضبة الله وعياري ساي لما أكل قوي
jeeda adi maxaa waxaan gacmaha kuu gashay goorme anagu gacmo ku dagaalami jirin ii fiirso wax iga baro yaa yaray seedigay maxaa kuu geeyey اسمي حشوني شوك هاو كمان joog bartaa ka dhaqaaqin برتا كدقاقي واقص الشيء واسكس عنس nixishoonay sid marka koobaad horta waxaan rajaynayaa in xalqada maanta aad ka hesheen ood ku mabsuudeen ood ku jibooteen ood ku khalkhasheen ood ku dawaqdeen ood ku mirqaanteen هاي بس ده نجا عامس ayoon المو والنا haddaba muhiimaddu inta qosoluun lagu joojiyo maahe walaalayaal waa inaan isbaraarujino oon cilmi iswadaag waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu talagalnay in aynu ka difaacno hablaheena falalka foosha xun leh loo geysanayo waxaynu ku soo aragnay xalqadeennii saddexaad ee musalsalkeennii nin iyo naag xeerarka iyo ciqaabadaha ay ka marayso dowladeenu dadka falaya falalkan foosha xun leh ee gudniinta hablaha haddaba qorshooyinkaasi iyo xeerarkaasi ma hirgalayaan haddii aynu indhaha iska qabanno dadkani waxeenaya falalkan foosha xun leh waajibka ina saaran waxa uu yahay in aan la xidhiidhno ciidamada jandarmeriga ama booliska marka aan isha saarno dadka ku dhaqmaya falalkan foosha xun leh waayo naf dhanoo ilaahay uu abuuray ayaa khatar la gelin haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oon ilaashano hablaheena